السلام عليكم. maanta waxaynu soo koobaynaa filimka magaciisa la yiraahdo Kaabil soo baxay 2017. Rohan waa nin indhala oo adduunyadu dhinaciisa mugdi ka tahay dareenka wax ku arka waxaanu nool yahay nolol madax bannaan oo isku kalsooni buuxda leh. waa nin leh hab dhaqan wanaagsan, naxariis badan, dhanka wanaagsanna wax ka eega. Supriya sidoo kale iyaduna waa gabadh indhala, labadooduba waxay ku nool yihiin nolol aan baqdin lahayn sida dadka caadiga ah. waxay karsadaan cuntadooda iyagoo u hagayo moobilkoodu, sidoo kale waxay la socdaan dhaqdhaqaaqa bangiyadooda. xirfadahooda khaaska waxa kamid ah inay luqadda Ingiriishta si fiican u yaqaanaan, sidoo kale waxay yaqaanaan ciyaarta biyaanada. arrinta muhiimka ah waxay tahay inay labadooduba aaminsan yihiin inay noloshu tahay mid aad u qurux badan, isla markaana aanay quusan marnaba. waxaanay aaminsan yihiin falsafada ah haddii Ilaahay uu albaabka xidho inuu albaab kale ku furayo. Rohan waa nin aad ugu nugul jabaqda oo si dhow u dareema codadka iyo dhawaaqyada. hadda wuxuu caawinayaa wiil yar oo dariskooda ah oo baaskiilku ka xumaaday. Rohan markasta wuxuu ku jawaabaa haddii aanan anigu waxba arkaynin, Ilaahay ayaa i hagaya. dhaqdhaqaaqa adduunyadana waxaan kula soconayaa dareenka wadnahayga. halkan waxaa ka bilaabmaysa qisada isbarashada Rohan iyo Supriya. isbarasho kadib Supriya waxay Rohan u sheegaysaa inay nooshahay nolol madax bannaan oo aanay cidna ku tiirsanayn iyadu, oo u dhaqanto sida dadka caadiga ah, adduunkana ay qalbigeeda ku dareento. waxaanu ku oranayaa Rohan, inagu waxaynu nahay indhoolayaal, laakiin ma nihin dad nolosha isu dhiibay oo daciif ah. hadalkaa kadib Rohan wuxuu aad ugu riyaaqayaa Supriya sida isugu kalsoon tahay, inkastoo aanu wejigeeda arki karin, haddana wuxuu naftiisa u sheegay inuu helay qofkii ku habboonaa isaga. maalintii xigtay Rohan si kadisa wuxuu u yimi goobta ay Supriya biyaanada ku barato. waxaanu u soo taagayaa gacantiisa isagoo ka codsanaya inay la ciyaarto. kumay adkayna way ka aqbashay, waxaana isula jaan qaadeen si cajiiba. waxaan odhan karnaa Rohan Supriya wuxuu siiyey farxad aanay filaynin, iyaduna waxay la dhacday qofka ciyaarkiisa cajiibka ah. halkaana waxaa ka dhacaya isu soo dhawaansho labadooda ah. maalin maalmaha ka mid ah waxay isu raacayaan mool. saxmadda dadka oo aad u badneyd awgood labadoodu way kala lumayaan. Rohan wejigiisa waxaa ka muuqda welwel badan, aad buu u qayliyey, wuxuuna ku dhawaaqayaa magaceeda. nasiib darrase iyadu ma maqlayso Supriya. ugu dambeynta Rohan wuxuu tegayaa stageka moolka oo uu bandhig ka socdo, waxaanu qaadanayaa mikrofoonka. wuxuu ku dhawaaqayaa magaceeda. Supriyana way maqlaysaa, kadibna way ishelayaan. waxay fadhiisanayaan meel, waxaanu ka codsanayaa inuu guursado. kadibna waxay u sheegaysaa inuu yahay qofkii farxadeeda ifiyey, nolosheedana nalka u shiday. waxaanay ku odhanaysaa maalintaan ku bartay waxaan dareemay inaanan camoolo ahayn. waxaanay u sheegaysaa maalinta ay isaga weydaa inay noqonayso maalintii sida saxdaa u dhimanayso. maalintii xigtay waxay eegayaan gurigooda cusub ee ay degi lahaayeen, kadibna way isguursanayaan. waxaanay u sheegaysaa inuu sugayo mustaqbal aad u qurux badan. sidoo kale Rohan wuxuu turjumaa filimada kartoonka ah isagoo sameeya codad kala duwan. habeenada ka mid ah isagoo suuqa ka yimi wuxuu wadada kula kulmayaa Amit oo ah nin kibraani ah oo aabihii maalqabeen yahay. Rohan iyo xaaskiisa oo gurigooda ku socda ayaa wuxuu qashqashaadaya xaaska Rohan. kadibna Rohan wuu ku xanaaqayaa, waxaanu ka jarayaa dhirbaaxo. Amit oo ka xanaaqay inuu Rohan u gacan qaaday ayaa wuxuu doonayaa inuu ka aarsado maadaama uu dhirbaaxay. isaga iyo koox dhalinyaro ah ayaa waxay guriga ku soo garaacayaan xaaska Rohan. markii albaabka ka furto waxay ku dhuumanayaan gurigiisa, kadibna waxay kufsanayaan xaaskiisa. nasiib darrase xilligaa Rohan guriga ma joogo. in yar kadib waxaa guriga imanaya Rohan, waxaanu wargelinayaa booliiska waxa dhacay. kadibna booliiska ayaa imanaya si ay u ururiyaan cadeymaha. kadibna Rohan waxaa kaxaynaya booliiska, waxaanay isku dayayaan inay ku sameeyaan baaritaan caafimaad. iyagoo jidka ku sii jira waxaa booliiska la wareegaya oo lacag siinaya Amit kooxdiisa. kadib Rohan iyo xaaskiisa halkii cisbitaalka la geyn lahaa ee baaritaan caafimaad lagu sameyn lahaa waxaa lagu tuurayaa badda xeeligeeda. in yar kadib waxay imanayaan dhakhtarkii iyagoo rafaadsan. waxaana loo sheegay xilligii riboodka caafimaad la sameyn lahaa in la dhaafay, maadaama aan wax cadayna loo hayninna boolisku kiiskooda way xidhayaan. maadaama wax cadayna aan loo hayninna boolisku kiiska ma furi karaan. kadibna Rohan aad buu uga xanaaqayaa arrinka, xitaa arrintaasi waxay saameyn xun ku yeelanaysaa shaqooyinkiisii turjumidda. Rohan oo niyad jabsan oo shaqada ka yimi wuxuu imanayaa gurigiisa, waxaanu baadhayaa xaaskiisa. nasiib darrase wuxuu helayaa iyadoo isdaldashay oo dhimatay Supriya. waxaanu guriga ka helayaa warqad ay u reebtay oo ay ugu sheegayso intii uu guriga ka maqnaa inuu Amit yimi guriga. wuxuu rabana ku sameeyey iyada si ay isaga uga ilaaliso murugadana ay go'aansatay inay nolosha isdhaafiso. in yar kadib waxaa guriga ugu imanaya Amit walaalkii Rowan, waxaanu ugu cagajuglaynayaa in haddii uu rabo inuu noolaado inuu arrinkan iska ilaawo, warbaahintana aanu waxba u sheegin. Rohan halkaa wuxuu ku ogaanayaa inaan booliiska la isku halayn karin, kadibna wuxuu go'aansanayaa inuu argudo xaaskiisa Supriya. tallaabadiisa koowaadna wuxuu aadayaa baarka uu Amit leeyahay.
kadibna markuu Amit yimaado Rohan wuxuu si qarsoodi u duubayaa codka Amit maadaama ay Rohan shaqadiisu tahay jilaa dhanka codadka ah waqti dheer kuma qaadanayso inuu iska yeelo codka Amit wuxuu maalin kasta practice gareyn jiray sidii uu codadkooda isugu yeeli lahaa Amit iyo walaalkii hubka ugu muhiimsan ee uu isticmaalayaana waa taleefan waxaanu isku dirayaa Amit iyo mid kamid ah asxaabtiisa khaaska ah kadibna wuxuu ballaminayaa isagoo codka Amit isticmaalaya mid kamid ah saaxiibada Amit si uu uga argoosto kadib markuu sidaa baarka u soo galo Rohan wuu gaadayaa ninka waxaana dhex maraya dagaal adag kadibna Rohan wuxuu ka soo daldalayaa baarka habeenkii xigay Rohan wuxuu wacayaa Amit waxaanu ku ballaminayaa bakhaarka kaydka shidaalka kadib markuu sidaa u yimaado Amit ayuu weerar ku qaadayaa Rohan maadaama aanu Rohan waxba arkayn dagaalka waxa ku gacan sareynaya Amit nasiib wanaag Rohan isagoo raacaya kabaha sanqadha Amit wuxuu si kadisa madaxa uga dhufanayaa bud kadibna Rohan wuxuu u garaacayaa si aarsi leh isagoo gacmaha iyo lugaha tiirka ka xidhaya kadib wuxuu wacayaa Matt walaalkii waxaanu u sheegayaa inuu walaalkii badbaadiyo kadibna Rohan meesha uu ka sii baxaya Rowan oo isku dayay inuu walaalkii badbaadiyo markuu albaabka sidaa u furo wuxuu la kulmayaa shamac albaabka hoostiisa la dhigay waxa istaabanaya baasiinka iyo shamci halkaasna waxa ku basbeelaya Amit maalintii xigtay waxa guriga Rohan imanaya wiilkii yaraa ee dariska ahaayeen kadibna wuxuu ka codsanayaa inuu waalidkii ka sasabo isagoo isticmaalaya codka macalinkiisa laakiin meesha waxa ku sugan dambi baadha Sheller ugu dambeyntii Rohan wuxuu taleefan ku ballaminayaa Rowan markan ballantu waa dhisme qabyo ah qaybtiisa sare kadib markay yimaadaan Rowan iyo saaxiibkii wuxuu Rowan isku dayayaa inuu qabto Rohan nasiib darrase wuxuu ku dhacayaa god uu u diyaariyay Rohan kadibna wuxuu dagaal adag dhex marayaa Rohan iyo Rowan maadaama uu Rowan ciil u qabay Rohan si xun ayuu u garaacayaa ugu dambayntana wuxuu Rohan iskala tuurayaa dabaqa Rowan laakiin Rohan isagu wuxuu xidhan yahay xadhig weyn waxaanu hawada u dirayaa Rowan maalintii xigtay ninkii dambi baadhaha ahaa oo soo helay meesha uu Rohan telefoonada ka dirsado ayaa sawir ka qaadaya Rohan waxaanu la tegayaa ninka leh goobta telefoonada isagoo sii jeeda ayuu ku dhahayaa ninkani ma yahay ninka meeshaada telefoonada ka dirsada markuu soo jeestana mise ninku waa nin indhala ugu dambeyntiina Rohan wuxuu badda geynayaa dambaskii xaaskiisa maadaama uu ballantii uu qaaday oofiyay una aarguday xaaskiisii maadaama uu markii hore ku ballan qaaday inaanu dambaskeeda badda geyn ilaa uu soo aara mooyaane filimkuna halkaas ku dhamaanaya nabadgelyo